وإسكا soo baxnay anagoo la yaaban jawaabta week kadib loo soo noqonayo gabadhii had dhakhtartana maray waxbay naga qortay waxay tiri aniga idin soo wacaya jawaabta markay timaado ana idin la soo wadaagaya yani ha imanina isbitaalka ku soo lugoyna jawaabtu inay waqti maqnaata laga yaaba markay soo baxdana waa la idin soo sheegaya waa hagaag waxaan iska soo tagnay laakiin waan shakisanay labada iyaduba muddo markii la joogay waxay tiri markaas 8 barmiya 10 barmiya jawaabtii wixii waaban iska iloobay wax weyn oo kurba ahba de jawaabtaas markii dambe iguma yahay laakiin markii hore waan ka yara shakisana xilli aan ilaawayba oo waqti uu ka soo wareegay baan maqlay bay tiri buuq iyo dad ooyaya iyo qaylo baan dabaqa qaybta ugu hooseysay ee maamadu ay deganeed baan ka maqlay waan soo arday waxaan sir bay tiri muxsinkii baa dhintay muxsinkan waxay tiri ma garanay sababtee mar allaala markaan arkaba si baan ugu damqan jiray waan u nixi jiray waxaan is dhihi jiray qofkan sidoo khamri u cabay armuqadnuhu istaaga qofkan talo maxaa ka qaldan marar baan arkay xilli hameena isagoo kaligii meel jaran jarta geeskeeda fadhiyo ooyaya waxaan isran jiray talo muxsinkan waxba ku dhacay waxba ka qaldan maxaa ka siya wax caawiye armu u baahan yahay wax la sheekaysta armu u baahan yahay daroogadan iyo balaayadan mushkilada iyo masiibaha haysta armu ku xalinaya marar badan baan ka fikiri jiray waan ka markaan saas u eego yani waxay tiri aan sii fiiriyo si baan ugu waswaasaabo qofkan iyo sidoo yahay qaabkiisa markaan si insaanimo u eegana waan u naxay waan ka walwala marar fara badan waxaan isweydiin jiray talo ma laga yaabaa qofkan dhibaatooyin inay haystaan waxaan tiri marka muxsin baa dhintay cid kale oo dhimatay ma jirto muxsin baa dhintay waxa la qaylinaya muxsinkii malaha nafta ka baxday muxsinkii malaha dhintay waan soo orday gurigeyga markaan ka soo baxay in guriga saas uga soo baxay gurigeyga iyo gurigiisa jaranjarta u dhaxayso hurdaaba muxsinkii Allah waxay tiri waxaan isir dadku marka maxay la qaylinayaan qofkii dhintay waaba kan meesha may ka qaadaan saanan ugu soo forsaday waxay tiri saasaan u rax saan intuu ii qabtay igu yiri tiri Allah la yaradak naga tag waxaan naga rabtaa noo toosinaysa markaasaan idhiba tiri Allah la yaradak adiga maxaa meeshan ku seexiyay marka waan iska soo dhaafay marka orod baan ku soo dhaafay waxaan isir guriga qaybta hoose aad kan ugu nool yahay mana dhimanay meesha uu daroogaysan yahay qaybtii hoose soo aaday saan waxay tiri maamada sodoodeed markay ii aragtay waaba sii qayladayba sii qayladay masiiba alla ku gurid inkaar alla ku gurid uqba alla ku gurid alla gabadhan yarta uqba inay qabto uqba masiiba inay qabto aan waan garanay waaba masiiba socotaba markaas gabadhi way weynaatay oo 2 sano barbar reerkan la joogtay iyadoo 19 jir oo 20 jir meelahaas la soo guursaday ilaa 23 sano markaas jirta waxay tan anigi waan yaabay ninkii caadil ahaa meesha jooga caadilkii meel halkaas oo kale oo darbi uu fadhiyaa uu ooyayo madaxa intuu gacmaha saaray buu ooyay hada oohin sida gabdhuhu u ooyaya dadkan dhan waxay tiri way wada ooyayaan anigu waxa ma fahansani muxsinkiini daroogaystaha anigu nool yahay meeshaasaan ku soo arkay jaranjarte reerkan maxaa la ooyaysan talo anigu maxaan sameeyay maxay dadkan markay arkeen u sii ooyayaan gabadha yar masiibada qabta inay tahay waan ogaa inkaar inay qabto waan ogaa alla inkaar baa nagu dhacday la masiiba nagu dhacday baa la leeyahay waxay tiri waxa ma fahansani waan yaabanahay waxay tiri wax ii sheega baan idhiyo gabdhihii maamadu ay dhashay kamid ah waxay tiri warqad soo qaaday waxay igu tiri warqadan akhri warqad hadaan saan u fiiri waxay tiri waxba si fiican waan uga fahmi waayay heeda warqadan maxaan ka akhriyaa waxa ku qoran magacayga iyo magaca caadil waxaan siri tolo ma cudur xun baa ninkii caadil ahaa lagu soo sheegay ilaa anaga hadii cudur xun lagu soo sheegay dadkan iima ooyayaan sababtoo xidhiidhkaygu ma wanaagsaneynba sadmada iyo masiibada adduunka ugu weyneed waxay tiri markaas baan la kulmayaa oo arkayaa waxaaban ogaaday ninkan la yiraahdo muxsin inuu idhalay oo aniga aabahay yahay caadilna uu adeerka yahay sododay ay eeday tahay eedooyinkay dumaashiyaashay ay eedooyinka yihiin marwa gabadhii aan isku ekeynay saas noo soo kala jeexay iyo wiilka ka weyn ee gabadha ka yarba walaalahay inay yihiin muxsin xaaskiisu eedaday inay tahay faadmadii aan reerkeeda ka burburiyay xaaska adeerka inay tahay caruurtii sababtayda hooyo aaba la'aan u noqday hooyadoodii aabahood loo kala furay ilma adeeraday inay yihiin ma masiibo ka badan baa jirta gabadhan sheekadeeda markay ka sheekeynaysa way istaagtay waxay tiri miyaa taloom waxa jira dunida waxa aniga igu dhacay oo kale qof uu ku dhacay macquul ma tahay macnaha waxa aniga igu dhacay qof uu ku dhacay adduunka inuu ku nool yahay oo iska noolo caadi oo isdilin oo dabaq iska soo tuurin oo sun cabin oo xabad madaxa iskaga dhufan yani waxa igu dhacay qof uu ku dhacay oo nool talo inuu jiro waxa tiri ma laga yaabaa waxa aniga igu dhacay qof uu ku dhacay inuu jiro gabadhii ishraaq ahayd caadil waaba adeerkeed ba sadma ma bacdaha sadamaat sadma waraa sadma waa tan sadma kaliya ma aha de waxa la yiri marka masiiba dhacday waxaan sameynaynaa waxa dhacay oo dhan waxa uu sababo muxsin waxa tiri muxsinkii buu qof walba ku qaylinaya qof walba waxbuu ku tuuraya waxa la leeyahay masiiba alla kugu rid waxaan oo dhan adaa ka mas'uula
waxaa la ogaaday marka oo reerkan la ooyaan la murugaysan yihiin masiibada reerka ku dhacday ninkan la yiraahdo Caadil gabadhan dhan uu jeclaa intaas oo sano uu guursaday uu xaaskiisa iyada darteed u furay uu guursaday ama xaaskiisa ha furo ama ha qababay masiibo ka daran ma jirto ilaa inuu adeer u yahay laakiin cid ogeyd markaas ma jirto dhinaca nasabka bay dadkani ka wada dhasheen khaatiirtu markay labadan qof u tageen yani ma garanay sababta waa la sheekiyay wax qaldan baa la arkay markan inta jawaabta laga qaaday wiiga kadib la balaminayo ee la isbitaalka ku soo noqonina jawaabtiina markay timaado anaga idin soo sheegaynay xilligaas waa 2009 bay tiri waxa laga baaray dadkan DNA waxa la ogaaday aad inay isugu dhow yihiin saaid qaraabanimo aad isugu dhow in labadan qof ka dhaxayso oo dhinaca aabaha oo dhinaca hooyada aan ahayn qaraabanimo saaid inay ka dhaxayso markii la ogaaday ninkii baa marka loo yeeray Caadil waxa lagu yiri waxaan rabnaa inaan su'aalo ku weydiino jawaabo kale in laga qaado muxsinkii baa dhiig laga qaaday haddana muxsinkii intaas laakiin cidna ma ogeyn Caadil iyo dhakhaatiirta unbaa ka wada shaqeynay muxsin iyo gabadhan la yiraahdo marka gabadhan yar ah Ishraaq wayba isdhaleenba waaba aabaheedii runta 100% muxsin markaas ninkii Caadil hadii isagoo ooyay oo murugaysan oo la masiiba igu dhacday oo madaxa gacmaha saariyo reerkii mid reerkii oo dhan afkay wada furteen oohin waxay tiri arintii waxay noqotay marka kharib ninkii Caadil ha waxay tiri gurigu iskaga tagay mar gurigu hooyadii buu yimaada halkaas oo ka noqda kordhan ma soo aada la muxsin iyo gurigiisa iyo guriga anu aan guriga ka sii sareeyay anigu aan deganaa agtiisa ma soo maro kadibna waxay tiri maalinkii dambe wuxuu yiri waxaan rabaa inaan wada hadalno inagoo wada hadlayna gabadh iyo aabaheed camal gabadh iyo adeerkeed anigu waxay tiri mar allaala markaan muxsinkii arkaba waan habaara waxaan idhaahdaa muxsino ilaahay cadaabkii ku gee masiibo alla kugu rid waxaan odhanadaa iigu wacan inaan adeerkii guursado adaa iigu wacan ilmaha yar marka xagee ka timiday gabadhan Ishraaqa waxay ka timiday ninkan la yiraahdo muxsin baa qof dumar xidhiidh la yeeshay oo cidina aanay garanayn isagu uu xataa malaha uu garanayn qofkii dumarka ahayd uur bay yeelatay kadib ninkan miyuu dafiray isagii way garan weyday miyaa waxay tiri ma garanayay adigu meel luqah la iga helay dad baa helay dadkii baa saldhig booliiskii baa waxay geeyeen meesha lagu koriyo carruurta agoonta dad waalido ilmo u baahan oo dadkii gabadhan soo korsaday ahaa la siiyay saasa lagu soo koriyay waxay tiri waxaan bilaabay mar allaala markaan muxsin arko inaan habaaran idhaahdo ilaahay cadaabkiisa halka ku dhig adaa waxa soo dhan iigu wacan inaan adeerkay guursado qof xun baa tahay qof aan wanaagsanayn baa tahay waxay tiri islaantii muxsin uu qabay ee saddexda carruurta dhashay ee marwo hooyadeed ahayd ma garanaya sababta wayba isniin nacdayba nac waxay ii qaaday xadka ka baxsan ma ina ninkani uu idhalay oo caruurteeda ka hor anigu aan jirayba ma hooyaday inuu ninkeedu xiriir la yeeshayba waxay tiri ma garanayo sababta ma garanayo maamadii waxay tiri saaid bay ii nacday aniguna markaasaan saaid u nacay waxay tiri waxaan u qaaday cadaawad iidii ciyaalkeediiba xataa waxay tiri gabadhii ii ekayd waan isnacnay maamadii muxsin uu qabay iyo ciyaalkeediiba waxay tiri waa nacay saaid baan ula xuloobay iyaguna waa ila xuloobeen muxsinna waxay tiri qof wax kala garanay ma ahade mar allaala markaan arkaba waan habaari jiray isagoo maqlaan ku dhihi jiray bay tiri masiibo ilaahay ha kugu riday hooyadii ii sheeg markaan ku dhaw waxay tiri ilama hadlo cidna lama hadlo isagoo aslanba meelahaas uu ku maqnaadaa isagoo dhacdhacayo khamraysan uu guriga yimaada qofna lama hadlo mararka qaar waxaan isku dayi jiray xataa inaan si degan ula hadlo cunto siiyo dharkiisa iyo wixiisa intaan u dhaqo si fiican u soo dhadhawaado u naxariisto inaan ku idhaahdo waxaan rabaa hooyaday waan ku baryahay please hooyaday ii sheeg islaantii waxay tiri marka muxsin uu qabay guriga way iskaga tagtay ma garanay sababta ma dadkan ceeboobay baan iskaga guurayaa bay tiri waxay tiri ma fahmin guriga way ka guurtay carruurteedina way qaadatay muxsinkii marka gurigii buu deganaan jiray isagoo kaligiya anigu waxay tiri hoos baan u soo dagay ninkii ahaa Caadilna gurigiisii saru qaatay Caadilkii iyadii saasay ku kala tagantay maxay kala tagaan awalba guurba meesha kama jirin ayayday iyo waxaan ku soo darmaday tiri eedooyinkay oo laakiin wali qalbigoodu si uu iga xidhan yahay marar fara badan baan ayayday weydiiyay waxaan ku yiri tiri ayay anigu maxaa dambi oon leeyahay hooyaday iyo aabahay baa qaladka iska leh anigu qaladka dhacay dambi kuma lihi wax walba oo dhacay wax qoran bay ahaay laakiin waa qaladka aabahay iyo islaantii dhashay tuurtay islaantii dhashay ay tuurtay way qaldan tahay wiilkaaguna wuu qaldan yahay qaladka ugu weyn waliba isaga galay anigu marka sababta dadka dhan ay nacayaan ay iiga fogaanayaan xataa walaalahayga walaalo kale ma haysta ilaa muxsin uu dhalay ay ii diidayaan maxay tahay sababta muxsin markaan idhaahdo hooyaday ii sheeg una iigu sheegayn maxay tahay markaas ay dhigi jirto hooyadaa ma isaga garan kara marka islaan khamraysan oo meelaha khamriga lagu cabi joogtay haday doonto yaa og alla khasaarnayo ceebownaye alla inaad dhimatay ahayd inaad dhimatay adduunka inaad ku noolaato ma ahayn marka waxay tahay ayay igu tiraahdo baan idhaahdaa wallahi waa run inaan dhintay ahayd
inaan iska dhintay ahayd. Almuhim waxay tiri qofka kaliya ee ii naxariisanaya ee lacag hadaan u baahdo isiinaya ee ii fahmaya ee la sheekaysan karo ee ii damqanaya ee fahmi kareen ana fahmaya waa Caadil cid kale ma aha. Caadil baan waxay tiri mar walba ku ooyaa waan ku calaa waxaan idhaahdaa anigu dambiga aan leeyahay muxuu yahay. Aabahay iyo hooyadeydii aan Caadil dartood uga go'ay subax walba intaan sameeyo geed dheer iyo geed gaaban bakroon isri la heshiina waan la heshin kari waa way diideen go'aan bay qaateen khalaas go'aankooda dad ku soconaya noqdeen madax adag way diideen inay ila heshiyaan intayna arrintan dhicin oo ina ka shifkan dhicin baan isku day intaas oo jeer inaan la heshiyo waxay tiri way diideen. waxaan raadiyay macalimaad Faadumaan isku day inaan dhulka isu dhigo oo isu duleeyo oo cagaha qabsado oo cala sibal reerkeedii aan dib ugu soo celiyo aan ku yiri fadeexad baa dhacday ani Caadil waa adeerkay waan qaldanay raali ahaw kaali gurigaaga ku soo noqo way diiday. ayadiina waxay tiri way diiday kabacdi waxaan ku dhahay adeerkay anaa gabadh kale ku guurnaya walaahi ma ka warwarin soo anu reerkaagii kaama duminin kadibna soo anu gabadhaadii ma noqonin waa balan anaa gabadh kale ku raadinaya waxay tiri isaguna wuxuu yiri waa haga gabadh kale reer kale iska guursanaya kaliya intaan meeshan deganaan lahaa adeerkay Caadil waxay tiri gabadh kale guursaday gabadh kale oo aan u soo helay ayuu guursaday. gabadhii kale markuu guursaday waxay tiri ileen mar walba wuu ila sheekaysan jiray wuu ina xariisan jiray lacag buu isiin jiray wuu i kaxayn jiray meelahaas uu ii dalxiisan jiray qofka kaliyan de ku tiirsanahay buu ahaa. gabadh buu guursaday gabadhii markuu guursaday waxaan dareemay markii inuu iga sii fogaanay gabadhii ama iga masayrtay miya ma garanay waxaan dareemay inuu iga sii fogaanayo lacag hadaan weydiisto una isiinin yani si fiican xataa una waqti ii siinaynin inuu iga sii fogaanayo. habeenada kamid waxay tiri isagoo kor u socday iyo gurigiisa oo guriga hooyadii ka yimid waana guriga ayadii aan u socdaan Muxsin gurigiisa ka yimid Muxsinna kaligii baa meeshan degan oo reerkiisii way ka guuran waxay tiri ana caawiyo wuxuu qabta. Muxsin waxay tiri marka waa nacbahay anigu maxaan wax ugu qabanayaa marba asxaan iyo naxariisiga ma aha waxaan wax ugu qabanayaa waxaan isleeyahay bal inuu mar uun qalbigiisa ku furo si uu kuugu sheego hooyada hadiiba uu xasuusan yahay. gabadh kulli ay xiriir lahaayeen bay ahaydee xiriir dheer miyay lahaayeen muu guursaday qeyr sharci miyay ku kulmeen miyuu xasuustaa inta waxaan rabaa inaan ka soo saaro bal hooyadii inuu ii sheego waxay tiri wax kastaan u qabtaa cuntaan u kariyaa dharkaan u dhaqaa waaban u naxariistaaba naxariistii aan ka waayay markaan yaraa baaban isaga siiyaa anigu hadda anu weyn. ninkii baan iska horlimid marka Caadil waxaan ku inaan kula hadlaan rabaa wuxuu yiri horta waad indha adag tahay gabadh yar waxa ta indha adag Caadil inaan kula hadlaan rabaa maxay tahay soo adeerka mihi adeer inaan kula hadlaan rabaa maad dhahdid oo si ixtiraam lama ila hadashid Caadil inaan kula hadlaan rabaa maxay tahay ma waxaad u malaynaysaa yani noloshii hore xiriirkii hore wixii hore inaga dhaxin jiray inuu jiro wali markaasaan inay tiri maayay waxaan rabaa laakiin inaan ogaado sababta aad isu bedeshay. wuxuu yiri isma bedelin waan ku jecelahay adeerka baan ahay waan ku ogahay waan ku ixtiraamaya laakiin aniga xaaskaygu inaan isla hadalno inaan meel isu raacno inaan isu soo dhawaano ma ogola sababtoo ah maadaama wax qaladan uu dhacay hadda ka hor way ka masayraysaa aniga waxay tiri waan xanaaqay waxaan gabadh shalay guursatay baad iga raacaysaa aniga gabadh horteed baad i taqaanay qof kale ma haysto aaba ma lihi hooyo ma lihi waalid ma lihi cid ma lihi dadkii anigu aan lahay waalidkaygii soo korsaday ee adduunyada igu soo barbaariyay waxay soo baray waalidkaygii adan kaaga soo go'ay waad ogtahay soo adina waalid ii noqoto ma balanti baad ka baxday beenaalaatay waxaad igu tiri ana aabi hooyaba ku noqonaya ana cid walba ku noqonaya adduunkaaga oo dhan ana ku noqonaya balankii baad ka baxday beenaalaatay baxay shaatiga inta saa u qabsadaan saa u ruxayo baaldar baaxo indhaha igu fijiyo igu dhibtay iga fuq bila edabadii aanu hadaan ku waalid iyo walaal iyo cid kastaan ku noqonaya ma haday ahayd goormayd markaan saa ku lahaa mar hore ahayd mar hore markuu waxay tiri dharbaaxay ugu yiri iga fuq wax ka baxsan qaraabanimada ilama iimaan kartid oo yani meel igee lacag isii saan iyeel waalidkii baad iga soo jartay waalid ii noqdo xaas kaama yeeliyo wakaas aabaha bad Muxsin baa ku dhalay oo aabaha soo aabo wax ku noqdo ma rabtid wax waalid ku noqdo soo ma rabtid waka aabaha guriga ku jira Muxsin baa ku dhalay Muxsin baa aaba ku ama ha khamreysnaado ama ha xumaado ama ha wanaagsanaado kaas baa ku dhalay aaba ku أنا قرابة أذير بانكو هاي واحد تبغى نية جوي مركامين كاس ونية جوي واحد تري الزائد بن نية جوي وحنقو أنكو قاري دوني ذا وحنين كنول إنك أرقصتو كيرو اللي يرى يعني وينو ريرلي نين با إنك أرقصتو صوتهم Muxsin سانو أحيي هاي وأباهي إن أذيرك يجورسدو إن لا يتورو إن كلش كأقوانت لا يقاطو والد إني كوريان إسقى كدم بي waalidkii soo koriyay ee jeclaa ee kalgacaylka iyo naxariista iyo xanaanada isiyay dartood waxaan uga go'ay Caadilna saano ila hadlay soo maharga dhanba waaba munaafiqiin waa inaan ka argoosta go'aan baaban waxay tiri xariiqday waxaan go'aan ku gaaray horta koow Caadil inaan xaaskiisa ka furo inaan kala furo Caadil iyo xaaskiisa
waxaan sidoo kale go'aan ku gaadhay inaan kala furo Muxsin iyo xaaskiisa. Muxsin marka xaaskiisu way iskaga tagtay guriga kaligiiba anaa ku haya, anaa wax walba u sameeya, anaa cunto u kariya, wax walba anaa u qabta. xaaskiisu marka inay isfuraan iyo inay isqabaan wax kurba ah kuma haysa xaasku damba kamala carruurteedii iska haysta iska korsanaysa. waxay tiri Caadil iyo xaaskiisii de kabaan u gashaday kabo iyagoo ilmo isu dhalay ilmihii koobaad baa waxay tiri kala furay Caadil iyo xaaskiisii. waxaan go'aansaday marka inaan iskaga guuray tiri guriga ayeedii oo aan u noolaado si allaale sida anigu aan rabo inaan u noolaado, inaan tago meelaha baararka, maqaayadaha, meelaha dadka lacagta leh ay joogaan, meel kasta oo aan markaan sidaas u fiiriyo aan ka ugaadhsan karo ama aan ka heli karayo qof hanti leh, nin lacag leh, si aan ula sheekaysto. ninka lacagta waxay maxaan ula sheekaysanayaa marka maxaan ka rabaa asxaan kale kama rabo lacag inaan ka qaado fiidiyoyaal aan shaxmay akhlaaq xumahana inaan ka duubo ninkaas hadduu reer leeyahay si kas aan ninkaas reerkiisii carruurtiisii xaaskiisa hortooda inaan ugu fadeexadoobo si ninka reerkiisa uu uga burburo. waxay tiri maba garanay sababta xaasidad intaan noqday adduunka wixii xaasidnimo taalay oo dhan inta isugu soo kay xaadirtay ma waxaan go'aansaday reer meel degan markaan arkaba inaan dumiyo dhinaca ninka aan ka soo wareegaya. gabadhii waxay tiri de igama badbaadin nin dhalinyaro ah oo shaqaysanayo nolol inuu abuurto rabo inaan ka qaso noloshiisa, igama badbaadin mid hadda dhow guursadayo aroos ka soo baxayo ilmo 2 ilmo 3 haysta mid aan weli wax ilmahaba loo dhalin. wax nin sheegta nin maba iga badbaadaba indhaha nin markaan saaro waxay tiri waxaan isku day waliba ku hantida leh lacagta leh maaha qof kasta ma aha kuwa lacagta leh inaan qofka barto jacayl inaan ku abuuro wax kasta oo maskaxdiisa ku soo dhacayna aan u sameeyo si ninka reerkiisa aan uga dumiyo oon u fadeexaday oon u ceebeeyo bas. hadiyadu waxay tiri waxay iigu soo di'i jireen sida roobka lacagta saasaan ugu kor soconaya maalintii 3 qof 4 qof baan baranaya qof walbana waxay tiri waxaan rabo anigu waxaan rabaan ka qaataa wax rabana waan u sameeyaa. لا صلاة ولا صون ولا الله كعبسي ولا حجاب ولا واحد تري واحد الله لوح مسكحدين كسر دعية ده أو حن أو نصمين بمشرو أنت نني ناكتس يعني سكدرين كلا فري واحد إلهي حق يسون بك حساب سنتين ما بقرني بتردد هذا ويعني كمان كان أقعد إنه حاس ليه واحد تري كسر نقصي للدوان تري نين سيان جانس وجوه لقون عضيمة سيان وجا قبطه عضيمها سيان حاس كيس أتصون كارير كيس وبربرو هدونا بربرين ده ويران كالسوني الرأي دبعت سيان وكلا رح أبورو كبدي واحد يصير مدة 3 سنة بواحد كتير إسلام غيره دوننا ندميو يعني ما نقولنا العقاقات يعني ما نقولنا الدبعات أوننا سماء الدبعات بس عقدت بقى كشبه ترى عقدت رجع ودن بواحد وقع عقدت لين مركان ساق وأركب واحد لها نكان قرح بديها xaaskiisa gaariga u saaran waa balan adii xaaskaaga inaan idin kala furo waxaan geed dheeri geed gaaban buu u koriyaa oo ninkaas iyo xaaskiisaan u kala furi lahaa cidna lama degani ehelkayga kuwii soo koriyay iyo kuwii dhalay iyo kuwii aan ka dhashay cidna waxay tir isma naqaano. ninkii Muxsin ahaa intii ayeedeed gurigeeda ka soo guurin buu xanuunsaday 2000 iyo waxay tir wuxuu xanuunsaday Muxsin 12 2012 markuu xanuunsaday muddo waxay tir xanuunsanaan jiray waa gabadhan inta ay argoosi waxaan ku fikiraysay in guriga ayeedeed ka guurin in Caadil iyo xaaskiisa kala furin 2012 waxay tiri uu dhinto markuu dhimanayay maalin buu dhintay batiri xilli subax ah markuu dhimanayay waxay aan la joogay mar walba waxaan weydiin jiray hooyaday oo ii sheeg waay batiri wax walba intaan sameeyay oon u roonaaday oon koolkooliyay oon kalgacayl u muujiyay oon la sheekaystay oon daryeel u sameeyay wax kasta wuu diiday in hooyaday ii sheego. mar allaale markaan weydiin ku dhada hooyaday ii sheeg waxay tiri madax un buu ruuxaa wuxuu yiraahdaa ma awoodo inaan ku sheego hooyada ma garanaysid miyaa ma xasuusatid miyaa hooyaday ii sheeg hooyaday baan rabaa hal mar inaan arko hooyaday baan rabaa inaan raadiyo hooyaday ii sheeg uu ii sheeg waay. ninka waxay tiri marka xilli subaxaan u soo galay isagoo xanuunsanay saa'id buu xanuunsanay qoyskooduna way ogaan inuu xanuunsanay marba qof baa soo booqanay waxay tiri anaa soo booqday oo imid markan ayadu soo booqanayso Caadilna reer buu yeeshay guriga ayeedeedna iskuma fiicnay eedooyinkeed Muxsin gurigu degan yahay la degan tahay marka Muxsin kibaa noo imid batay marka isagoo sakaraatul mawdki isagoo qaadqaadayo saa sariirta ugu jiifa oo waxay tirsan kor u fiirinayo xilliga qofka wax walba la tusaa wax kasta waa la tusaa Soomaha markuu qofku sii dhimanay naftu ka baxayso waxay tir waan soo ag istaagay waan fiirinay ilaa intuu dhimanay isla markiiba naftu kama bixinay waxay tir wax saacad dhan buu qeeq oo lahayo sakaraadi waxay tir indhihiisa kor bay eegeen ma libiqsanayaan anu waxay tir halkan aan taaganahay waan fiirinaya waxay tir xataa ma naxayo ilin igama soo yaacayso jidhkaygu in yarna xataa ma dubaaxinayo ma garanayo tir sababta qofkan sakaraadkan dul taaganahay waxaan dareemay kaana inaan ku raaxaysanayo inuu dhimanayo oo rabo inuu dhinto xanuunkan uu marayo waxay tiri xataa kama wada damqanayo
وان إيجا واحد تري سانو إيجا كربو إيجا وإفيريا وحن دريمي بتر مركز الصبح حاس إنه ربي إنه وحيش شاو لكن هو أودي كرواي سبب توقف نفط كب حيستي وحمل شيء كريه سان أكر تاجناب واحد النفطي كب حضي خلاص وكو آمصي مركو ساس آمصي نفطي كب حدين أنت وجودن بيسي waxaan isdhahay bay tiri maanta dhan waa badul taagneede shahaado maxaad u dhihi weyday haduuna xataa afka ka shahaadan kareen niyadaha ka shahaatay haddana waxaan isdhahay bay tiri may isagoo soo muudidin hooyada ku sheego shahaado inaad xasuusiso xataa ma ahayn iska dhaaf gabadhii yarta ahayd waxay tiri markuu qofkii dhintay baan cabaar sii dul taagnaa cabaar saana waxay tiri meedkiisa u sii fiirinay waan sii fiirinay qiyaastii saacad kale markaan meesha taagnaa baan guriga daaqadihiisii furay qolku ku jiray albaabkiina waan furay anoo qaylinayaan jaranjarta ka soo degay qaybtii hoosaan u soo degay ayidii waxaan imid eedooyinkay waxaan ku yiri muxsin wuu dhintay weliga waxay tahay aab ma dhihin muxsin baan dhihi jiray muxsin wuu xanuunsan yahay muxsin wuu dhintay muxsin baan waxa u soo qabanaya muxsin oo maxaan ku sameeyaa muxsin oo hooyadii ii sheeg laana waxay tiri aan wax walba intaan sameeyay aab inaan dhaw isku kari waayay ayidii iyo waxaan u imid bay tiri iyo gabdhihii la dhashay waxaan ku dhahay muxsin wuu dhintay محسن ودنتي لا والله بالله خاتم محمود كدنتي سحنبو كدنتي إلهي أون حريص مركي دهان بنيدك دهي جربي ترى أنا ما دهي إلهي أون حريص wax iga galay mal hooyadii budiiday inuu ii sheego hooyadii maadaama uu diiday waxay tiri inuu ii sheego ma garanayo xaasidnimadu halkaas ay cunugta yarta ka soo raacdayba gabadhii waxay tiri xaasidad baan noqday caadili xaaskiisaan isugu diray waan kala furay gurigiina waan ka soo guuray guri cidla ahaan degay rag lacagta la inaan ugaarsadaan bilaaban lacagta ka qaaton xaasaskooda ku diroon fiidiyoyaal iyo cajalada aan shaxmo aan ka duuban adduunyada saa ugu faafiyo nimanka fadeexadeeyo nimanka shirkadaha ka shaqeeya nimanka madaxda kuwa CEO-yada shirkadaha kuwa xafiisyada jooga nimankaas aan bartaa waan la sheekaystaa waxay rabaan baan u sameeyaa waxaan rabaan ka qaataa hadhowna dee fadeexatal caalamiin baan ku dhigaa ninka dadku la shaqeeyo dadku madaxda u yahay xaaskiisa cid kasta waxay tiri waan ku ceebeeyaa maxaa iga galayba ani ulujeedkaygu waa inaan ninkan ceebeeyo uun gabadhii waxay tiri 13 sano 13 sano waxaan ku sugnaadee dalaal mubiin baadi noocii ugu dambeeyay qof inaan fadeexeeyo qof inaan dhibaateeyo ma ahane waxay tiri hal mar xataa hal maalin qalbigayga geeri iyo waa la dhimanayaa iyo alla ka cabsi iyo inaan islaam ahaan jiray waxay tiri waa ilaa wax walba oo hadda igu soo dhaca waan sameyn jiray waxay tiri qof ma dilin oo qof nafta kama jarin waxna ma xadin labadaas dambi un baanan galin qofna ma dilin waxna ma xadin dambi kale oo adduunka korkiisa yaala oo aan sameeynin ma jiraan u malaynayaa bay dhahday laakiin hanti meel taalo ruux u leeyahay xaday ma xasuusto qof aan nafta ka gooyina ma xasuusto hanti waxay tiri marka waan xadi lahaayo uma baahaninba sababtoo niman lacag laan bartaa lacag saas iigu soo qulqushaaba iyadaaba iigu socon jirtayba bilaa waxay iigu soconaysay tiri bilaa xisaab gabadhii maalmaha kamid waxay tiri saan u labisanahayna dhaqan xumada dharkan xidhanay magaalada ku dhex marayo waxay tiri mararka qaar meelaha markaan socdeen arko qof si ii fiirinayo ila yaaban anaa khajili jiray oo isdhili jiray maryahan maxaa ku xidhay gabadhii maalmaha kamida meel waxay tiri xaflad ay ka socotay ayaan tagay wiil dhalinyaro ah oo isnaqaanay oo dee listiga dadka laga argoosanay iigu jireen markaa wali waxba ku sameeynin oo markaas uunaan isbaranay baa ii ka xeebay tiri meel xaflada shirkadda uu ka shaqeeyay xaflad ay qabanaysay meeshii markaan tagnay dad fara badan baa meesha ka hadlay oo dadkan meesha lagu soo casuumay kamid ah waxba la sharxay nin baa hadlay bay tiri dadkan dhaqaatiirta nafsiga ah dhaqaatiir waxaa jira marka nafsiyo si maadi wax soo bartay iyo dhaqaatiir nafsiyo islaami ah oo qofka markay waaninayaan oo ay waanooyin iyo talooyin siinayaan axaadiis iyo aayado quraan soo daliishanayo qofka dee si fiican qalbiga u dajinay waxaa jira nin baa hadlay nin doctora oo dhaqaatiirtan nafsiga dadka ka hadlay ku takhasusay baa hadlay ninka hadalkiisa waxay tiri ma garanay sidii u sii socday buu qalbigayga galayba waxaan is arkay oo ninkii hadalkiisa aanu igu socdaba oo si degan u dhageysanay waxaan go'aansaday ninka inaan barto ka argos iyo fadeexad ma aha si caadi inaan u barto sababtoo ninka waqti yar baa la siiyay 5 daqiiqo miya 6 daqiiqo waxbuu hadlay waxaan dareemay ninkan hadalkiisa inaan u sii baahanahay oo aan rabi lahaa meel intaan fadhiisto 6 saacadood ninka hadalkiisa inaan dhageysan lahaa aad baan waxay tiri ninka hadalkiisa ugu bogay waxyaabaha waxay tiri marka qofku uu ka sheekeynayo qofka xaalada markay haystaan ciriiri markuu dareemayo qofku qofan ilaahay ku xidhnayn markuu yahay noloshu inaan u dhadhameyn haduu lacag haysto haduu dahab haysto gaariga ugu qaalisan haduu haysto wax walba haduu haysto si uu qof u gubanayo dee maciishatan banka uu ku noolaanayo qofku markuu yahay qof aan ilaahay ku xidhnayn Soomaha oo wax walba xun iska sameeynaya
ninka waxay tiri markuu hadlay oo sharaxaad galay unba waxaan isu maleeyayba ani inuu iga hadlayaba oo aniga xaaladan ku suganahay iyo waxaan sameynay sidaan ahay iyo waxaan isiri un yaa ilaahi wallahi qofkan anu iga hadlaya malaha anu iga hadlaya anigii baa shakiyay waxay tiri mar dambe oo ninkii inta la kala dareeray meesha xafladda laga kala dareeray ninkan dadkan meesha jooga ay salsalaamayeen oo xilliga la sii babaxayaan ninkii uu imiday waan salaamay waxaan ku iri waxa la yiraahdaa inta gacanta u soo taagay barasho wanaagsan Suhayla waxay tiri la yiraahdaa magacii Ishraaq waan iska bedelay sababtoo aabahay Muxsin baa maalin wuxuu igu yiri waxaan doonay inaan ku bixiyo Suhayla waxaan rabay inaan ku bixiyo Suhayla laakiin way ii noqon weyday way ii suurtagali weyday waxay tiri aabahay sir weyn baa ku duugneed wuu la dhintay sababtu uu ooyi jiray aanan ogaanin sababtu sakhraanka uu ahaay u daroogaysnaa aanan ogaanin sidoo kale waxa la ii sheegay 23 sano inuu saan yahay 23 sano ka hor qof fiican buu ahaan jiray caadi ah mar buu saan noqday sidii buu ku tagay wuxuu igu yiri bay tiri marka inta aadan dhalanin waxaan niyadda ku hayn jiray oo jeclaa magaca Suhayla inaan ku bixiyo maalinka waxaan ogaaday bay tiri inuu hooyaday garanayo oo uurka markay hooyaday uurka igu waday xataa uu ogaa oo caloosha markii la igu waday uu ogaa oo gabadh inaan ahay miyuu qiyaasay miyuu ogaa ma garanayo marka waxay tiri wuxuu igu yiri waxaan rabay inaan Suhayla ku bixiyo laakiin way ii noqon weyday isagoo ooyay iima sheegay laakiin sababta uu ooyayo iima sheegay hooyaday meeshii aaday sababtii la ii tuuray waxyaabo badan oo rabay inaan ka ogaado anaan ka ogaanin buu dhintay maadaama igu yiri marka waxaan jeclaa inaan Suhayla ku bixiyo markaan waxay tiri xumaaday in go'aan ku gaaray qof xun inaan noqdo kas magacii aabahay uu ila rabay baan isu bixiyay marka Suhayla si aan isaga uga argosto magaciisi qofkan xun loogu bixiyo Suhayla waxay tiri la yiraahdaa dhakhtarkii baan ku yiri ahlan wa sahlan waxa la yiraahdaa Suhayla dhakhtarkii waxay tiri marka uu dhowl cadeeyay saas intuu gacantiisa midig talaabta u saaray uu dhowl cadeeyay wuxuu igu yiri barasho wanaagsan anigana waxa la yiraahdaa Dr. Hebel intuu magaciisa ii sheegay waxay tiri marka waan yara khajilay gacantii baan hoos u dajiyay ila gacantan u soo taagay waan iska salaamay wuxuu yiri marka Dr. Hebel baa la yiraahdaa Suhayla barasho wanaagsan imu salaamin waxay tiri waan yara khajilay gacanteedii hoos baan u dajiyay waxaan ku yiri marka waxaan u baahanahay kaarkaaga businesska yani waan ku baahanahay maadaama tahay dhakhtar waan ku baahanahay ku heli karaa wuxuu yiri kaarkiisa intuu isii ahlan wa sahlan xilli walba kaarka marka meeshu degan yahay sida ballan looga samaysto waxa soo dhan baa ku qoran waxay tiri dhakhtarkii baan ballan ka samaystay waan booqday dhakhtarkii markaan u tagayay dhar yara fiican baan xidhay bay tiri marka maalinka xafladda aan joogay xataa dharkan xidhnaa dhar wanaagsan ma ahayn dhar yara fiican baan xidhay oo yara muxtarama wax yar adu toob yar dheer iyo wax baan xidhay waxay tiri dhakhtarkii baan u tagay dhakhtarro waxaan ku yiri inaan ku waramaan rabaa oo kaaga sheekay qisadayda kadibna dii aad adiguna ila talisid oo daweyn isiisid dhakhtarkii waxay tiri u waramay qisadaydii min bidaaya intaan uga soo bilaabay 1 2 3 baan ila nihaaya u geey dhakhtarkii wuu yaabay isagii baa damcay bay tiri markii bilaabay inuu hadlo waan dhageystay waxay tiri waligeey iyo Ilaahay dhakhtar nafsi baan maqli jiray dhakhtar nafsiyana ma arkin mana booqanin waxaan u maleyn jiray marka dhakhaatiirta nafsiga dadka inay talooyin caadi ah siiyaan waxa sameyn iyo dawooyin ninkan waxay tiri hadalkiisa dawa ah hadalkiisa Ilaahay awood leh markuu de insaankiisa hanuun markuu adoonkiisa markuu hanuun la damco xaflad dhaxdeed baa lagu hanuuninaya Ilaahay hanuunka wuxuu kugu soo dhiibayaa adoomadiisa ciidamadiisa mid kamidoodan fileen gabadhi waxay tiri ninka hadalkiisu sida faleenbadooda iyagu socdaa mid kale ninku waa qof dhaqtara oo diiniyan iyo maadiyan u dhisan qofka markuu wuxuu sheegayo quraan buu soo daliilinayaa diintii buu u dhex sheegayaa axaadiis buu sheegayaa gabadhi waxay tiri qalbiga waa ka ii xasilay waaniga ninka hadalkiisii dhageystay waaniga iska ooyay su'aal baan weydiiyay dhakhtarkii waxaan ku iri tiri dhakhtaro ma kula tahay intaasoo dambiyaan galay oo intaasoo reer baan kala furay oo intaasoo gabdhood baan nimankoodii reerkoodii ka qasay oo intaasoo qof baan fadeexadeeyoon ceebay ma u malaynaysaa inuu Ilaahay cafiyo wuxuu i weydiiyay bay tiri su'aal ah qof ma dishay kow mad qofka siisay waliga may qof ma aadan dilin Soomaa naf Ilaahay uu xarimay gacantaada kuma aada dilin Soomaa waxay guribay tiri adoonku si kasta haduu dambi u galo dambi walba oo dunida guudkeeda saaran haduu galo marba hadad iimaan leedahay Ilaahay rumaysan tahay oo qof mushrigo Ilaahay wax u shirgeelay aad ahayn toobada waa laga aqbalaya waxa tahay gabar fiican waxaad haysataa chance fiican waxaad joogtaa waqti fiican albaabki toobada wuu furan yahay shaki inuu ka galaba ma inuu Ilaahay tooba ka aqbalay in kale Ilaahay toobada wuu ka aqbalaya biidnillah si dhab ah u toobadkeen waxaan dhibay tiri marka waan cabsanaya Ilaahay baan ka cabsanaya haddaan toobad keeno xataa waan cabsanaya
maalinka ilaahay la hor taagan yahay waxaan ka baqayaa inta ilaahay la isoo hor istaajiyo intaas oo dambi oon galay in la i weydiiyo dhaqtaro waxaan ku wariba tiri wallahi ma qiyaasi kartid inta dambi aan galay dhakhtarka waxay tiri wuu ilmeeyay wuxuu yiri ilaahay waa qafuur raxiim soo ma ogid ilaahay inuu yahay ilaah qafuur raxiim ah oo dambiyadoo dhan dhaafa qaafir dambi wa qaabil toob inuu ilaahay yahay soo ma ogid ilaahay inuu yiri adoomadeyda xadgudbay dambiyada galayo حقوسننا يعني دنبيدينا أو دن وان إذا كدافع لا تقنطوا من رحمة الله وعترد آيات القرآن أي أحاديث وآخر دكتور كيو أوي أنا جينا وان أوي وحيترد أنا اللي أنت إجا عايز أدي أفتو بدل مي بنكسو تجي دكتور كيو حنقول بتر مرة بدن بقوسا نقنطونا حنقول بتر إيوسا نق لكن waxa ugu horeeyay aan kugula talinaya wuxuu yahay marka koobaad salaad inaad bilowdid wuxuu ugu dhibay ma tukataa horta markaasaan ku dhibay tirmay wallahi runta hadaan ku sheegay 13 sano sujuuda dhulka ma dhigin 13 sano ma sujuudin mana rukuucin mana tukanin wuxuu ugu dhibay dhakhtarka marka waxa qof wanaagsan ani waxa waan yaabay 13 sano ma tukanin baan kulahay wanaag waxa uu iyaala wuxuu ibay waad nasiib badan tahay waxa qof aad u nasiib badan bal ka waran qaflada aad ku jirtaa dad ku dhiman lahayd 13 sano adoon ilaahay u sujuudin oon soomin oon alla ka cabsanin oon wax khayr ah samaynin 13 sano adoo dambi uun galay hadii inta lagu qaban lahaa qaflada hadaad ku dhiman lahayd ka waran waxaan dhibay tirday naarta un baan madax u gali lahaa wuxuu yiri ilaahay baa ku jecelba sababtoo ah adoo meel fiican jooga oo waqti fiican haysta toobad keen hada salaada bilow hadda waa inaad salaad bilowdo maxaan salaad bilaa waxay tii mar lagu tukan karo gurigeyga ma taale go'a sariirta iyo daaqada ku xirinta soo dejisteen aan isku duuduubo ma ahan mar lagu tukan karo oo cawradeeda asturaysa gurigeyga ma taalo suuqi baan waxay tii aaday afraa gabadhii ahayd ishraaq waxay tii waxaan soo gatay dhar lagu tukan karo dhar hagaagsan cabaayado khamaaro xijaabo waan qabeystay waxay tii sijaayad baan soo iibsaday waan tukaday ilaahay baan ku dhaartay waxa tir salaadii iigu horeysay markaan tukaday 13 sano kadib waxaan dareemay sida waxaan dareemay tir qofaad aad u jeceshahay oo sanado badan aad kala maqnaydeen mesela hooyo ilmaheeda waqti dheer ka maqnayd oo kale markay is arkaan u horeyso soo hab isma siinayaan saan ilmaheedo dhashay markaad hab u siisid maxaa dareemaysaa naxariis jacayl dareen nooc kale ah dareemaysaa dareenkaas oo kale waxay tir dareemay markii iigu horeysay salaad tukaday ilaahay baan bariyay waxa dhakhtarkii aan muddo ku noqon jiray dhakhtarkii anigu waxaan noqonay saaxiib waxaan u sheekaysanay marka si wanaagsan wuxuu igu leeyahay guriga aad degan tahay ka guur deegaanka xaafadda aad degan tahay ka guur maryahaaga iyo sawiradaada iyo wax walba oo gurigaaga yaala oo noloshaadii hore ku soo xasuusinaya gub ama qashinka ku dar guri cusub deg shaqo cusub raadso risq xalaal raadso bina aadankii aad dambiyada ka gashay in allaale intii aad ka gaari kartana cafis weydiiso ilaahayna cafis weydiiso waalidkii ku dhalay aabaha muxsin iyo hooyadaadii ku dhashay waxa hooyadii ma garanayo oo magaceedii ma garanayo waxa ma garanayo iska cafi iyagana cafi ilaahay dartii ku cafi aabahay baan ilaahay dartii ku cafiyay hooyadii dhashay waxa tiri ma garanayo may dhimatay may nooshay ma garanayo ilaahay dartii baan ku cafiyay gurigii baan ka soo guuray maryo cusub baan soo iibsaday alaab cusub baan soo iibsaday shaqaan raadsaday nolol cusub baan bilaabay waxaan soo kaxaystay guriga keensaday bay tiri 4 bisadood si aan bisadaha u qoodiyo ugu naxariisto waqti u galiyo guriga markaan joogada si boorin aan u dareemin oo kaligay u noqonin bisadahan soo kaxaystay bitir yar 4 xabadooda 4 xaba ah bisadahaasaan waxay tiri koriyaa mar walba dhakhtarkii alla waxay tiri dhakhtarkayga qaaliga dhakhtarkii de wuxuu ii noqday ruuxa kaliya aan waxay tiri ku tiirsanayaan ku kalsoonayeen jecelaayeen hadalkiisa qaateen waxay tiri waxaad ii malaysaa dhakhtarku markuu ila hadlay hadalkiisa saan u qaadanayo ama u jecleysanayo ama uu iigu socdo ama aan u maqlayo waxaad ii malaysaa bay tir yaani in la ileeyahay oo kale qofkan ilaahay baa ku soo diray oo ilaahay baa qofkan fariin kuugu soo dhibay fariimaha ka dhageyso xaqiiqdii waxay tiri ficlan ilaahay baa ii soo diray qofka ilaaha awood leh waxay tiri inaan nasiib badanayo ilaahay toobad ila damcay maalintii xafladda aan tagay hadaanan tagi lahayn baadidii aan ku sugnaa un baan ku sugnaan lahaa laakiin ilaahay baa doonay inuu isoo hanuuniyo jidka xaqa ay tusoo baadida aan ka soo leexdo mar walba ishraaq waxay tiri markaan soo xasuusto wixii aan sameyn jiray iyo dambigeygii iyo sida aanan dambigii ugu dhimanin aan u toobad keenay baan ilaahay u mahad celiyaa isla marka aan ilaahay u mahad celinayna waxaan gudahayga iska weydiiyaa qalbiga ilaahay wixii dambi aad gashay oo dhan talo inuu kaa dhaafo ma laga yaaba maalinka ilaahay lagu soo hor istaajiyay ishraaqay wixii aad dambi gashay lagu weydiiyo ilaahay waa sariicul xisaab باللمح البصر واحد دم قشبه هالك على وصل ليه
maalinka maxaad samayn doontaa ma laga yaabaa ilaahay inuu ku asturo ma laga yaabaa maalinka qiyaamo inaad ka shifantido ilaahay adoomadiisa oo dhan wuxuu bini aadan ilaahay abuuray in lagugu dhex kashifo ilaahay inuu kuu dambi dhaafo dunuubtaadii oo dhan lagaa dhaafo ma laga yaabaa gabdhihii islaameed in guryahooda ka dumiyey iyo nimankii naagihii aan isku diray inay icafiyaan ma laga yaabaa qiyaamaha inay igu qabsadaan ma laga yaabaa yacni waxay tiri waan ku faraxsanahay inaan toobad keenay oona qafladii aan ku jiray aanu ku dhimanin isla markaana waan cabsanayaa mar walba waxaan isweydiiyaa waxaas oo dambiya miyaa lagaa dhaafi doonaa bise maalinka qiyaamo waa lagu weydiin doonaa si kastoo ahaataba waxay tiri rajaa iyo khawf baa igu jira ilaahayna waan ka cabsanayaa wanaag iyo toobadkeen iyo inuu ilaahay ii dambi dhaafayna waan rajaynaya gabadhan marka ishraaq la yidhahdo waxay qisadeeda soo warisay iyadoo gurigeeda kaligeed ku nool dambiyadii oo dhan ka toobad keentay cidna aan qasin reeraha isku dirin macsiyo kala samaynin nimankii balaayadii waxay walaaqaysa banaanka ka martay 4 bisadood korsata waxay tiri haddii aan guursado yani waxay tiri inaan xataa guursadaan ka cabsanaya sababtoo waxaan dambi galay iyo waxaan reer soo dumiyey waxaan adduunyo qasay baan ogahay guurkii xataa waan ka baqayaa waxaan ka baqayaa bay tiri markaan guursado yani dhibaata inay igu dhacdo nafsiyada dadkii aan isku diri jiray saas darteed waxaan rabaa bay tiri inaan kuriyo xayawaanka sidoo kale waxaan rabaa bay tiri inaan tago meelaha ilmaha lagu kuriyo bilaa waalidka oon caruur ka soo qaado oon caruurta kuriyo marka waxay rabtaa markan waa mar ay sheekadeeda ay soo warinayso ay shaqo bilowday guri ay degtay ay iska fiican tahay waxoogaa dhaqaalaheedu u wanaagsan yahay soo wanaagsanaan laakiin dhaqaale weyn oo ilmo ku kafaalo qaadi karta marka ayna haysanin saas darteed waxay tiri inta ka horeysa inta aan ilmo kafaalo qaadi karayo iyo 2 iyo 3 ba waxaan rabaa bay tiri inaan u naxariisto bisadaha waan bisada gurigeyga keeno bisadaha aan xanaaneeyo bisadaha jidka jooga kuwa meelaha maraya markaan hanti fiican yeeshana waxaan rabaa bay tiri caruuraha agoomaha ee bilaa waalidka sideedoo kale inaan si wanaagsan u koriyo hal shay ba waxay tiri ilaa hadda marka niyadda iga jiro mar walba isweydiiya aabahay siraa ku duugnaaye talo wixii ku duugnaa maxay ahaayeen muxuu la ooyi jiray hooyaday wuuba garanayaa waa ka ila markaad caloosha hooyadaa ku jirtay waxaan rabay inaan Suhaylo ku bixiye muxuu Suhaylo iigu bixin waayay maxay ii tuureen hooyaday xagee aaday hooyaday miyay nooshahay mise way dhimatay su'aashaasaan isweydiiya si kastoo ahaato waxay tiri aabahay Muxsin waan cafiyay hooyadeedii dhashayna waan cafiyay mar walbana waan u duceeyaa waalidkii soo koriyayna dib ayaan u midownay oo waan la heshiyay mar walbana waan u duceeyaa laakiin gurigoodii markaa kuma noole iyada kaligeed meel degan gurigeedana bisada bas kula nool oo ay korsataa 4 bisadood يا سلام إنكستو شيء معجزة وكشري شاكذا إشراق ويدي أديرك عادل أرنتو ذا أرنتي بسم الله ماذا حاجة كوين أنا سأيتهاي هذا نرنتي وقساءات يا عجيبة ومعقول قفكو مرارك قار دباتوين أنت كل عن دباتوين ككل عاي درتود قف قلب لقى حال إنه نغضو وقف أنت وحكو سمايو وقان صداد فربضان وقف كيو كلا أما قف كي أي اسكو نوعيهين إنه كأرجوستو لأن عادل بوالد كيت كسوق حي محسن بها هويدي كضفري وهويدي وشيء واي نعيب كي أوقبتي أبيهدي أدير كده بيجو أنت ترجع ودنا إنك أرجوسط الرجع أنا واحد دم بيك جلين بمركة كأرجوسط أوريرو هودي كده مسي أو فضيحة هذا سوء عيسى أيضا دم بابسة